waxaan ku riyooday hooyaday oo i leedahay ninkaaga iska fur, nin lacag leh ayaan kuu guurinayaa. qofka soo qoray waa Axmed Ciise. qofkanna wuxuu u hadlayaa sidii hadal gabdheed uu ku hadlooyaa. wuxuu leeyahay assalaamu calaykum sheekh muusow, waxaan ku riyooday anigoo caloosheeda buufka tin iiga soo baxday. ii sheeg biliis sheekho. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu. meel walbo aad joogta iyo si walbo aad ii daawanayso, channelku waa Macalin Muuse official channel, aniguna waa Macalin Muuse. booqashadaadu haddii ay tahay markii ugu horreysay, ha hilmaamin subscribe-ta, like-ta, share-ta iyo comment qurux badan oo annaga dhiirigelin inoo ah. ha hilmaamin sidoo kale gambaleelka inaad furato. waxaa kaloo isxusuusin mudan mar walba oo aan idin xusuusinayaa inuu jiro channel kale oo aan ugu talagalnay dhalinyarada iyo dhaqaalaha laga suubiyo internetka oo ay kaga faa'iidaysan karaan, uuna youtuber ka yahay, uuna inoo soo jeedinayo walaalkeen injineer Ismaaciil. isagana waxaan rajaynayaa inaad ka faa'iidaysan doontaan insha allahu tacaala channelkaas oo isagana qaybta dhalinyarada aanu xil saarnay. intaas kadib, maanta waa maalin kale. waxaan ku rajaynayaa caafimaad iyo cimri dheer. waxaan ka jawaabayaa maanta su'aalo kooban oo ku saabsan su'aalaha commentiska in lagu soo weydiiyo. su'aalaha inta badan oo dadku aad ay u jecel yihiin in looga jawaabo, inayna soo weydiiyaan in looga jawaabo oo ay jecel yihiin, ayaan dhowr su'aal ka soo qaadanayaa. haddii aad nasiib u yeelato, faxmidillaaha, ilaahay u mahadnaq. haddii aad nasiib u yeelan weysane, insha allahu tacaala muuqaalka xigo ayaynu ku soo qaadanaynaa, waana kaaga soo jawaabaynaa insha allahu tacaala. maalinteeda ha sugu weynin. waxaase igula yaab badan kommentiyada qaarkood markaan indhindheeyo oo aan akhriyo, qaarkood inaysan dulqaadba aanay lahayn oo ayba iska caroonayaan oo ay leeyihiin waa kaan noogayeen nabaday Macalin Muuse bayba ay dhahayaan. dulqaadkii aawe, sabarkii aawe. waa la sugaa, waxaan waa la sabraa. waxa weeyaan sabrahee sidkiis helo waayo. waayahay, toosaan u gudagalayaa barnaamijkeyga. su-aasha u horeyso oo aan ka jawaabaya maanta, nasiib waxaa u yeeshay wiil la yidhahda magaciisa Axmed Ciise. axmed wuxuu leeyahay assalaamu calaykum Macalin Muuse, waxaan ku riyooday hooyaday oo i leedahay ninkaaga iska fur, nin lacag leh ayaan kuu guurinayaa. qofka soo qoray waa Axmed Ciise. qofkanna wuxuu u hadlayaa sidii hadal gabdheed uu ku hadlooyaa. ani meel walba mucjisaa ay haysato. tiktoga markaan joogana mucjisaa ay haysato, youtube markaan joogana mucjisaa ay haysato. waxaanoo kale dadku waxay leeyihiin macalinkan fani waaye, wallahi macalinkan dadkii asaan ah. Axmed Ciise wuxuu dhawayaa hooyadayaa nin mataqaanaa gabadha ka dhaxalooso. bal youtube-ka samayskiisa ma wuxuu u baahan yahay, waxaynu u baahan yahay. waaye intaas yaanu kusii mashquulin, yaanu kusii badbadanin. waxaan leeyahay qofkan haddii uu Axmed yahay iyo haddii ay xaawo tahay iyo haddii ay qadra tahaybo, waxaan leenahay jawaabtaas iyada oo ay hooyada ay ku leedahay ninkaaga iska fur, nin lacag leh ayaan kuu guurinaya, shaydaan waayo. gurigaaga inuu burburiyuu rabaa. sidaan ogsoonnahay shaydaanka waxaa loogu jecel yahay yiri, shaydaanka shayaadiinta wuxuu ugu jecel yahay midka guri dhisan ama qoys dhisan burburiyo. marka saas daraaddeeda shaydaan waa iska ilaaliya. tafsiirka lama u baahna. acuudu bileyso, gurigaagana dhaqo, reerkaaga dhaqo, meeshaada fadhiiso. intaasaan kaga baxaya insha allah. qofka labaad ee xigo ee nasiibka u yeeshay waxaa waaye Hani Cadey. waxay leedahay waxaan ku riyooday shiiqow anigoo ku libisanay tiri kabo madow ah oo mar hore aan tuuray iyo dhar hore anoo ku libisan iyo jaakad cusub oo madow ah anoo ku libisanaan ku riyooday. oo wixii wada madow ka dhigtaya. madowga macnihiisa ma taqaanaa? madowgu waa maal, taajir. gabdhuhuna aad u jecel yihiin lacagta. arrintan arrin taajirnimo iyo maalqabeennimo iyo hodantinimo ka hadlaysa. gabaraa tahay, nin maalqabeenaa ku guursanayo. maxaa yeelay dharka ilaahay wuxuu ku tilmaamay hunna libaasun lakum wa antum libaasun lahunna. u fiirso, ilaahay markuu ka hadlayay nin iyo xaaskiisa muxuu ku tilmaamay? idinkana dhara idin yihiin, idinkiina dhara u tihiin oo yidhi. dharaa isku tihiin macnaha. hunna libaasun lakum wa antum libaasun lahunna. idan marka dharka noocyadiisa kala duwan arto waxaa weeyaan waa nolosha qoyska, waa ama nin ama naag waay. madowgana maxaa waaye? aswaad huwa almaal, maalka waay. idan gabar yahay waa kuu hambalyeynaya. gabar haddii aad tahay hore aadan u guursanin, nin maalqabeen ah ku guursanaayo. nin maalqabeen ah oo taajir ah
ku guursinayo waa macnaheed halkaasaan kusoo koobaya insha allah ma kusii dheeraanaya inaa aad usii farxdid macnaha oo aad iska badbadatid aan diidaya ma fahantay intaasaan kusoo koobaya waaya shiiqo waxaan ku riyooday yiri qofkani waa boorowe dadkii oo qabuuruhu kasoo baxayaan salaadayaa ka tagtay taariku salaadaa tahay aakhiraa hilmaantay waa lagu xusuusinayaa hal aayadaan ku xusuusinaya anigana maadaama riyadan aakhire ay ku xusuusinayso anigana hal riya aan ku xusuusiyo iyo ogolow hal aayad oo quraan ku jirta inaan ku xusuusiyo aayaddaasoo ah iqtaraba linnaasi xisaabuhum wahum fii gaflatin mucriduun dadka qiyaamihiyaa u soo dhowaanayo walxaal hum iyaga oo fii gaflatin ku jiro halmaam mucriduuna xaqani ka jeesanayo qiyaamaha mar walba wuxuu dhacaa aa la sheegaa dadka iyaga oo gaflo iyo halmaam ku sugan oo aanan diyaar u ahayn uu dhacaya marka haddii qofka uu ku riyoodo dadka qabriga oo soo wada baxaayo dabcan qiyaamihii oo dhaca waaye yowmu nushuur waaye yowmulbacthi waaye yowmulbacthigana waa qiyaamaha waaye idan marka xusuusin waaye waa laga yaabaa inay taada soo dhowdahay waa laga yaabaa salaaddii inaad ka tagtid laga yaabaa oo taariku salaad aad tahay adigayaa lagu xusuusinoyaa aakhir inay jirto iyo isa soo saar inuu jiro iyo isla xisaabtan inuu jiro ina ay fahantiyaan rajaynaa ood ka bogatay insha allahu tacala waana mahadsantahay allah ku hanuuniye qof kalea wuxuu leeyahay maariya faarax assalaamu calaykum waxaan ku riyooday anigoo masjidka dhex fadhiya oo khudbada jimcahane dhegaysanaya maariya faarax dabcan waa gabar qofkan soo qoray gabdhaha haddii ay ku riyoodaan iyaga oo ku jiro masaajid ama khudba ha dhegaystaan ama masaajidka ha ku dukadaan gabadha masaajidka marba hadday ku riyooto iyada oo ku jirto ajasheedaa soo dhow maxaa ku dhehday dhaha gabdhaha masaajidka ma galaan mana ku dukadaan inta badan ilaa iyada oo meed ah oo dhimatay oo naxash ka saaran aa la qaadaa masaajidkaa la geliyaa waa lagu dukadaa saas daraaddeed waxay leeyihiin marka gabar haddii ay ku riyooto iyadoo masaajidka dhex fadhiso ama ku jirto macnaheeda ajasheedaa soo dhow teeda qiyaamaheedaa soo dhow macnaha hana nixin inaa naxdidna xaq u malid sababtoo ah waxa waaye dee waa la wada dhimanaya kullu nafsin daa'iqatu lmowt waay riyo waaye marka riyadana qad takuunu waqad laa takuunu way dhacdaa mana dhacdo marka waxa weeyaan laakiin sida macnaha lagu macnaya saas waaye marka waxba ha nixin insha allahu taala niyadda khayr u sheeg qof kale wuxuu leeyahay waa fortuune assalaamu calaykum macalin muuse waxaan ku riyooday qof weyn oo aan aqaano oo nin ah oo igu dul kaadshiyo madaxa uu iiga soo bilaabay ilaa iyo korka oo dhan waa maxay taasi kaadida waa maal xaaraan ah xoolo xaaraan ah waa haddii aad ku riyooto adiga nin uu kuu kaashaayane ninkaas isagaa wuu ku beelaya wuu ku masruufaya wuu ku nafaqeynaya ama ninkaaga ha ahaado ama boyfriendkaaga ha ahaado laakiin lacagtan uu ku maalgelinayo ku maalgashinayo xaaraan waay ina ogaataya taas iyay kaa hoos bixin ninkaagana wuu noqon karaa saaxiibkaana wuu noqon karaa labadaba midkuu yahaybo lacagtan uu ku gelinayo iyo qarashkan uu kugu bixinayo xaaraan waay ama ninkaas ha ahaado ninkii xalaashaada ahaa ee ku qabay ama saaxiibka ha ahaado kaadidan uu kugu kaashaya korkaaga dhan uu ku bilbilaayo waa nafaqadiisa waay masruufkiisa waay biilkiisa waay laakiin waa maal xaaraan ah waay inaa fahantaan rajaynaya insha allah waayahay assalaamu calaykum ustaad muuse waxaan u baahanahay riyo in la ii fasiro riyadu waxa ay tahay sidatan habeen baan ku riyooday anigoo wax cabay wixii aan cabay ayaa bogga ii fariistay ama ii istaagay wixii mama tagaayo daaco ayay leeyihiin daacadana waa mid aad u carfoon ustaad intaasaan ku riyooday inaa ii soo jawaabtid ayaan rajaynayaa mahadsan riyadan oo ah habeenkaas aad ku riyootay waxaan aad cabtay waxaa laga yaabaa inaad cabtay ama lagu cabsiiyey ka soo qaad waxaa lagu cabsiiyey oo kale sixir mashruub oo kale aa lagu cabsiiyey wixii markaa rabtid inaad soo matagtidne daaco unbaa kaa imaanayso daacaduna waa carfoon daacadu maxaa mataqaanaa alkalaamu ayib walxasan hadalka wanaagsan waa daacada markii lagu riyoodo hadday carfayso waa hadal wanaagsan waaye hadal fiican waaye hadal maasha allah waaye daacada saasaa laga wadaa macnaheeda daacadu waxa weyaan marka arrintan iyada waxaan ku macnaynayna waxay tahay in hadalka afkaaga ka soo yeerayo ee kaa soo baxayo inuu yahay mid xaq ah aad tahay wiil run badan
run sheeg badan fiican dabeecad wanaagsan laakiin haddana laga yaaba inaa xanuunsan tahay biyahan aad cabtay xanuun inay tahaa laga yaabaa nolol inay tahayna waa laga yaabaa wajacalnaa min almaa'i kulla shayin xayin afalaa yu'minuun oo kale marka almuhim hadal wanaagsan waay insha allah waan kuu rajaynayaa caafimaad iyo hadal wanaagsan aan kuu rajaynaya insha allah qofka xiga waxa waaye iqra waxay leedahay assalaamu calaykum shiiqo waxaan ku riyooday anoo i guursanaayo macallin tarbiyada ii dhigi jiray riyadan ma ahan inuu macallinkaasi ku guursanaya macnaheeda ee macnaheedu waxa waaye macallinkaas qofku dabeecad ah oo kale inaa wada socotiin inaa isguursanaysiin qofku qabiila qof qaraabo la'ah laakiin isla macallinkii inay ku furmayso maan macnaheeda riyadu marmarka qaarkood waxaa dhacdo qof aadan aqoonin weligaa aadan arkin oo ku aroosaya arkaysaa adigana gabarhaa tahay weligaa ma lagu aroosin riyadu waxay ku furmaysaa markii sidaasoo kale ay tahay qofkaas u eg qofkaas ku dhiig ah qofkaasi qaraabo ay yihiin qofkaasi ku qabiil ah ay ku furmaysaa marka macallinkan waxaa laga yaabaa shabiihiisa ama qof u eg inay ku furmataa laga yaabaa ama adiguba aad jecleedba markii aad iskuulka dhigan jirtay macallimiinta macallinka aad ugu jecleed inuu yahay maskaxdaada iyo niidaaduna sidaas darteeda eeriyi kugu tisaa laga yaabaa assalaamu calaykum shiiqo anigu waxaan ku riyooday anigoo matagaya 3 xabood tixri ah marne qaarna dhoontay ii taagnaayeen marne dhiig ayaan ku riyooday maalmahaasne quraanka ayaa isa saaray oo dabeecaddeeda isbedeshay oo quraanka xitaa markaan dhegaysto korka cuncun iga kici jiray maxay noqonaysaa waa xan alghiiba xanta iska dhaaf dadka aad xaminaysid jooji warkan dadka aad u kala gurguurinaysid iyo dirdilaalinimada jooji meeshan waxaaba kugu qoran bafiiri xanta soomaaliya kugu qoran magaca meesha kugu qoran ka fahan inaa xan badan tahay xanta soomaaliya cinwaanka kugu qoran adreskaaga magacaaga xanta soomaaliya jooji xanta haddaad xanta sii wadid adigana sidaa le maalin walba uma tagaysaa dhiig iyo wax le ma tagaysaa afkaaga wax le ka soo baxayo qurun le ka soo baxayo dhiig le ka soo baxayo dheecan xantaa keenayso ummadda ha jarjarin dhiigooda iyo dheecaankooda ummadda ha kaa badbaadaan cirdigooda iyo sharafkooda iyo maalkooda ummadda ha kaa badbaadaan allah ku barkeeyo ugu dambeyn qofka ugu dambeeya waa fayfa amar aa ugu qoran wuxuu leeyahay assalaamu calaykum sheekh muusow waxaan ku riyooday anigoo caloosheeda buufka tin iiga soo baxday ii sheeg biliisow ii sheeg biliis sheekho labay ma noqonaysaa tinta hadday ka soo baxdo meel aan timaha meesha ay ka soo baxaan aan ahayn kurbo waay murug waay marka waa kurba fooqa kurba kurbadii ku heysayoo kurba loo geeyey waaye waa dabal kurba waaye marka dabal kurba waaye marka saas daraaddeeda waxay leeyihiin hadday intoo kale tin ka soo baxdo calooshoo kale hadday tin ka soo baxdo maxaan ku radaa meel aanay tin ka soo bixaynin hadday tin ka soo baxdo wejigoo kale tin hadday ka soo baxdo kaasoo dhan arrimaha noocaasoo kale dhan qofkaasi qof kurbaysan waaye kurbo fooqa kurbay dhahaan marka laakiin sideeda kale tinta haddii meel fiican meesha loogu talagala haddii ay ka soo baxdo cimri dheeri waaye wanaag waaye wax fiican waaye sidii u kala qurxan tahay oo weliba u kala mustaqbal fiican yahay qofka ku riyoodaa riyada isagoo meeshii loogu talagalay ee uga soo baxayso aadaa u mahadsantihiin mar haddii aad intaan soo gaartay ha hilmaamine subscribe-ta like-ta gambaleelka waxa dhan isku wada furfuro commenti qurux badanna nala wadaaga insha allahu tacaala muuqaalkan muuqaalka xigo intaan ku kulmeyno waxaan idinkaga tegayaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu